الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaan hore ugu soo sheegaynay inaynu nahay asalka inagoo weli dhammaan casharkaasi weli ma dhammaan. waxaan doonayaa calashaan si cashar dadkii iyo magaalooyinkii aan isku waafajiyay ayaan doonayaa. haddaba magaalooyinka magacyo kale ayay lahaan jireen. magaalada ama waddanka aan maanta u socono casharkanaga quseyn doono waa Djibouti. Djibouti intaynan gelin waddanka Soomaaliya, dadyowga Soomaaliyeed oo dhan magacyo kale gaar ah ayay lahaan jireen oo iminka baaba'ay, qaarkood guuray, qaar cusub soo baxay. sida matalan berbera markaad tagtid waxaa la oran jiray malabo ayaa la oran jiray. hargeysa markaad tagtid waxaa la oran jiray hargegeys. waayahay boosaaso markaad tagtid waxaa la oran jiray bandar qaasim. waayahay muqdisho waxaa la oran jiray sarabiyon, xamar, maqcad shaah. waa magacyo xilliyo kala duwan ay lahayd. sarabiyon waa af Soomaali, waa seero iyo biyo iyo oon oo la isu geeyey, waa sarabiyon. waa before yani xilligii ka hor nabiyullaahi ciise ka hor yaa loo yaqiinay. romaaniyiintii hore iyo griigii hore qolooyinkaas ay qolooyinkii bariga fog ka imaan jiray ayaa maaragtay magacyadaasi u yaqiineen. kadib bay noqotay maqcad shaah. waa qolooyinkii maxaa la yidhahdaa iiraaniyiinta markay soo bilowdeen ayay iyadana u baxday. fadhigii shaaha waxaa la yidhaahdaa magac weeye, magaca boqortooyooyinka iiraaniyiinta ayaa loo yaqaan shaah loo yaqaan. waayahay haddaba xamar kadaalika waa magacyo waan xilliyo kala dambeeyey iyo magaalooyin kale oo fara badan oo hadda koonfurta markaan idhaahdo sida afgooyo kale magac kale ay lahaan jirtay. arundaala la oran jiray, damaleyaa ku xigtay, afgooyaa ku xigtay. oo balcadna horaan ugu sheekeeyey, casharo kaleama uga sheekeeyey in la oran jiray kooyaame, shanta kulan, buur bishaaro, taytayley iyo balcad in la oran jiray. sidaas lamid ah. haddaba aynu nimaano markaa Djibouti. waxaan aada uga xumahay oo aan ku celinayaa casharada aan bixinayno ma aha taariikhdii gumaysaha sameeyey. ma aha taariikhdii gumaysaha sameeyey. haddii la yidhaahdo waan raacinaa, waa lulnay, tanii waa masaxantay. waa in asalkii aan baadhnaa. gumaysaha uu inaga qariyaa inaynu nahay asalkii adduunka. gumaysaha inooma sheegin, iskuulladiisi markuu dhigayo kuma jiraan, wixiisi unbuu buunbuuniyaa. wuxuu kaaga sheekeyn geesiyaashiisii, geesiyaashanadii kama sheekeeyo. wuxuu kaaga sheekeyn dhulkiisii, dhulkeena in yar unbuu ka sheegaa, ama hadduu wax ka sheegayna si liiditaan ay wax ugu sheegaan. matalan markaan u laabano xagga beeraha, markaan u laabano intaynan Djibouti aan si fiican u dhexgelin, wuxuu yidhaahdaa ciidan noocan ah waxba kama baxayaan. sida matalan reer muqdisho iyo reer maaragtay gobollada dhexe ilaa maaragtay bariga wuxuu ka raariday ciidda madooboye ciid kale inaysan waxba ku bixi karin ayuu ka raariday. oo ah hadda waa la beeniyey. waxaad arkaysaa beeraha ku yaalla afgooye iyo beeraha laga sameeyey dhinaca muqdisho, ciiddii caddeyd ilaa iyo ceelasha laga sameeyey. waxaad arkaysaa beerihii midho lamid ah oo aan ka duwanayn, isku quality micnaha isku quality ahaan isku mid ah, aan maaragtay dhadhankii isku mid ah ayaa la arkay. ilaa gaalkacyaal lagu sameeyey. muus baa laga beeray, waa la beero muuski wuu soo baxay. waa cambaal laga beeray wuu soo baxay. hargeysa oo laftigeeda laga dhaadhiciyey berigii hore inaysan waxba ka bixin, iminka way aragtay. tumadhadii ka baxda, liintii macaaneed oo meel kale adduunka aan ka bixin baa ka baxda. carabsiyo dhulkaa markaa tagtay gabiley galleyda ama haruurka
ama maaragtay ugu macaan baa ka baxa bariga africa ma malayn kartid marka waa hadalka gumaysaha horta waa la beeniyey taa weeyaan waa inaynu raacnaa annaga asalka innaga waa inaanu hubsanaa oo si fiican u dabagalnaa si cilmiyeysan iyo si taariikhaysan oo dadka innaga aan kala xiriirnaa tii haddaan idhaahno gumaysihiiba ma sheegin ingiriiskiiba ma sheegin faransiiskiiba ma sheegin de waa maskaxda si wanaagsan baa lagaa qabsaday markaa iska diid maskaxda in lagaa gumaysto haddaba jabuuti waxay soo martay magacyo kala duwan ayay soo martay magacyada kala duwan maxay ahayd magacyada kala duwan horta xilligii gumaysaha markuu yimid ayaa maaragtay adduunka xoogaa caan ay ku noqotay laakiin micnaheedu waxa weeyaan gumaysaha markuu imaanayo waa meel la deganaa ee dad sii deganaayeen dadkii lahaa sii deganaayeen ilan gumaysiga ma tago meel cidla ah kuma dego oo dhul cidla lama qabsanayo gumaysiga sidiisaba waxa u dan ah in meel dad degan yahay uu tago oo degaana haddaba waa la deganaa fikradaha qaladka ah oo reer hebel baa halkaas laga keenay lasoo dejiyey reer hebel baa halkaa laga keenay hadda waa jabuuti waxaan wada ogow waa qalad fikrado qaldan weeyaan jabuuti waa la deganaa iyadoo la degan yahay buu yimid 1820 inay ahayd baan ma hubo laakiin 1800 xilligaasi ayuu maaragtay gumaysihii faransiiska markuu imaanayay waa la sii deganaa dad buu u yimid ilaan daday gumaystaan bay doonayaan maaha meel cidlaa ma gumaysanayaan taa horta maskaxdaada ka raadid caqligaaga ka raadid oo meeshaan lama deganeyn yaana lagu odhan waayahay magacyadii haddaba oo loo bixiyey maxay ahaayeen magacyadu waxay ahaayeen ee la oran jiray kuwa loo bixiyey maahay kuwii la oran jiray waxay ahaayeen dhulka cafarta iyo ciisaha oo magac isaga laftiisa qaatay ee ogolaaday gumaysigii laftigiisa ogolaaday oo dhulka cafarta iyo ciisaha dadkii deganaa buu arkay degaanka yaa degan cafar baa degan yaa degan ciisaa degan yaanan kala saarsaarin dadka waa xanuunka lahawga gumaysiga uu wada weeyaan ee dadka kala dhex dhigay kala taf way deganaayeen isaaq wuu deganaa gadabursi way deganaayeen carabna way